gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee degmada Ceelafweyn ee xarunta labaad ee gobolka Sanaag Kayshe Shira Saalax ayaa maanta maran ku booqday xafiiskiisa uga warbixiyay TV-ga caalamiga Somali News hormeer uu dhawaan gudoomiyuhu u baxay ulajeedka kormeerkan oo uu gudoomiyuhu ugu kuurgelayay heerka waxbarasho iyo habsami socodka imtixaanaadka sanawiga ah iyo xogaha baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanada Dabardalool Ceel Midgaan la Soomaaliya Hulul Dararweyne Garabcad Xamil Dabar Mama Ceel Dibir Dhurcilaan iyo Baloolahe geesta kale wuxuu gudoomiyuhu kormeerkan qiimeynayay waa sidoo hadalka u dhigay tayada iyo habka cashar gudbinta macallimiinta wax ka dhiga dugsiyadaas deegaanadaas gudoomiyuhu kormeerka ku soo maray oo dhamaantood hoos yimaada isla markaana ka tirsan degmada Ceelafweyn ee xarunta labaad ee gobolka Sanaag kormeerkan oo ahaa kormeerkii ugu ballaadhnaa ee abad gudan waxbarasho ku tago deegaanadaas oo qaarkood magaalada Ceelafweyn u jiraan masaafo ilaa 200 kiiloomitir ah gudoomiyaha oo kormeerkiisan ka warbixinayana waxa hadaladiisii kamid ah maanta ay bisha tahay 27kii bisha shanaad sanadka 2015 waxaan ka warbixinayaa kormeer aan ku tagay 19kii bisha shanaad 2015 ilaa iyo 23kii bisha shanaad 2015 deegaamo hoos yimaada degmada Ceelafweyn kuwaas aan dugsiyadooda kormeer ku tagay dugsiyada aan kormeerka ku tagay waxaan doonayay inaan ugu kuurgalo saddex number 1 waxa weeye u kuurgelida inaan baahida rasmiga ah waxbarashada deegaanada ka jirta aan soo ogaano number 2 inaan soo qiimeeyno hawsha iyo shaqada macallimiintu hayaan habsami socodka shaqada iyo imtixaanaadkii sanawiga ahaa oo la qaadayay inaan iyaga soo eegno sidii u soconayaan iyo macallimiintu sidii u shaqeynayso qodobka saddexaad ee aan u kuurgelinay safarkayga ugu kuurgelinay wuxuu ahaa inaan xog rasmi ah ka soo helno macallimiinta heerkooda aqooneed heerka ay ku tababaran yihiin cashar gudbinta iyo wax dhigistooda sida daraadeed wax weeyaan alxamdulillah nabadgelyo ayuu soo dhamaaday kormeerkaasi dhulka aan tagnay ama deegaanada aan tagnay waa deegaano aad u kala fog runtii oo ilaa iyo 200 kiiloomitir u jira qaarkood u jiraan degmada Ceelafweyn deegaanadaas waxaan ku soo aragnay baahi waxbarasho oo aad u xoog weyn marka waxaan la kulmayay macallimiinta iyo muxuu ahaayay gudiyada waxbarasho iyo qaybaha bulshada deegaanadaasi kuwaas ka wada hadalay xogna naga siiyay baahiyada waxbarashada deegaankaas siday waxbarashadu u socotay deegaanada qaarkood ama dugsiyada qaarkoodna waxaan u soo sameynay gudiyo waxbarasho kuwaasaan gudiyo waxbarasho hore u lahayn sida Ceel Dibir Dhurcilaan Baloolahe waxaan u sameynay gudiyo cusub dadweynahan waxaan isla qaadanay in aanu isla kaashano caruurta waxbarashada u baahan si aan xaqooda u waayin aan iska kaashano inaan wax ka qabano baahida waxbarashada deegaanka ka taagan dholalka iyagana aan soo maray xarumaha waxbarasho u baahan waxa kamid ah Libaax Darayar Bildaaley Baylah Male dhulkaas kamid ah oo aan iyagana dhamaantood dadku waayelkoodina la soo koranay kana soo wada tashanay sidii aan uga bilaabi lahayn xarumo waxbarasho waxweeyaan deegaan dad badan degan yahay ballaaran dhismayaal fara badan leh caruur fara badan waxbarashada xaq u leh ay joogto sida daraadeed waxweeyaan baahidii oo kooban waxaan ka diyaariyay warbixintana waxaan u gudbin doonaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare insha Allah taala markii waqtigu noo saamaxo waxa sidoo kale aan ka soo ururinay deegaanada iskuulada kuwii dugsiyada lahaa foomamka xog ururinta xogtii dugsiyada iyo xogtii macallimiinta waan ka soo qaadnay Axmed Mursal Askar TV-ga caalamiga Somali News magaalada Ceelafweyn ee xarunta labaad ee gobolka Sanaag